xubnaha golaha ee sharafta leh waa salaamantihiin. Salaan kadib Soomaalidu waxay dhahdaa waxaad ogtahay ma ku sheegaa. Xubnaha sharafta leh waa ka xumahay markii hore waana ka cudur daaranaa run ahaantii in guddiga maaliyadda saaka oo ka kala hadlo golaha hortiisa. Laakiin waxaan aaminsanahay inaad og tihiin ama aad ka dheregsan tihiin aadan u baahnayna sababaha aan u kala hadlayno iyo faahfaahin fara badan aydan nooga baahnayna. waxaan ognahay xalay ilaa shalay wixii magaalada ka socday kaambeynkii xukuumaddu hogaaminaysay warbixintan ka dhanka ahayd ee u ekaa in aad moodo in la ansixinayo xukuumad ama kalsooni codka kalsoonideed ay weydiisanayso golaha shacabka. waxaan aad uga xumahay in saameyn intaas la-eg ay diiday xukuumaddu isku kalsooneyn qabtana kalsooni darri kana muuqato inay mugdi iyo madmadow fara badan ay ku jiray waxaan la garan in ku guntanayso. laakiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago xoolaha shacabka Soomaaliyeed ee halkan ku maqanay. Soomaalidu waxay dhahdaa guji xaggeel wax lagu guntada ka weyn sinaba kuma lumayaan. halkan inta la yimaado looga jawaabo waa lagu qasban yahay. laakiin waxaan mar kale ku celinaa inaan aad uga xumahay in xubnihii guddiga oo joogay intooda badan ay ka hadlaan halkan oo ay dhahaan ma aanaan joogin. hadda qofku hadduu sidii shalay inuu waalnaayo maanta isaga kaa dhigo ku dhaha qofkii shalay aad aragto kula fadhiyay aniga maba ahayn waa igu riyootay wax laga qaban karo ilaahay abuurta lama arko xubnaha golaha sharafteeda. waxaan rabaa in guddoonka hadda aan ka codsanno inuu halkan keeno shaqaalaha guddiga la shaqeeya u dira attendance sheetkii maalintii aan go-aankaas gaarayn. in badan oo kamid ah halkan soo istaagtaa ku qoran kuna saxiixan sawiradooduna yaalaan. arrintaasi waa arrin laga soo shaqeeyey. dabcan dee inaan golaha hortooda xaqiiqada ka jirtaahi meesha ka sheegno waan ku qasbannahay. aadaan uga xumahay inaan saaxiibadii guddiga ka tirsan aan hal ku marag furo inay naftooda ku been abuurayaan halkaan intay yimaadeen sababo uun la xidhiidha in ay difaacaan wax aynan garanayn intay ka weecdaan oo ay ka leexdaan wixii ay u dhaarteen oo ay shacabka Soomaaliyeed ku matalayeen. waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka cudur daarto golaha shacabka halkan fadhiyana waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo warbixintan waa ka xumahay inaan magaciisa sheega laakiin saaxiibka Maxamed Soomaali asaa shir guddoominaya maalintii la go'aaminay oo go'aanka ugu dambeysay guddigu ka gaaray. guddoomiyuhu maqnaa oo baydhabo ku maqnaa. marka dee qofka isugu fadhiyey oo maqnaa hadduu naftiisa ku been abuurayo oo odhanayo anigu ma joogo wax video ah oo aan ka hayno ilaahay abuurtaahay lama arko. laakiin attendance sheetkii iyo ma garanaysaa sawiradii laga qaaday intaba waan haynaa. waxaan rabaa haddii guddigii waajibaadkiisii ka gaabiyey ama oo khalad galay ama oo kari waayey warbixintii halkan la idinkugu soo gudbiyey inaan si saxa idinla wadaagno. waxaan idinka codsanaynaa xubnaha golaha shacabka leh inaadan waajibaadkiina guda waayina. waxaan idinka codsanaynaa in cidda lagu tilmaamay ama warbixinta waxa ku qoran inaad si dhaba ma garanaysaa uga doodaan. waxaan idinka codsanayaa inaad baaritaan saxa ku samaysaan. ciddii mas-uuliyaddaas iska laheedna in tallaabada ku habboon laga qaado. golahani waa golaha ugu sarreeya ma garanaysaa hay-adda sharci dejinta ama la xisaabtanka hay-adaha dowladda. waxaan rabaa inaan idinla wadaago rag badan oo asxaabtayda ka mid a ayaa siyaabo kala duwan iila soo xiriira. qof kastoo kamid wuxuu ugu lahaa cabdullaahi oo guddigu uu kala jabayaa guddigu uu burburayaa. cabdullaahi oo goluhu uu kala jabayaa xukuumadda kusoo duulaysa goluhu uu burburayaa. warbixintii waxaan idinka codsanaynaa inaad dhahdaan intaad timaadaan stageka inaad dhahdaan beenaan sheegayna shalay idiin sheegaynay wixii waa naga qaldameen warbixintii la noqda. aniga iyo inta kale ee diiday inaan isku been abuurno dhana shalan been idiin sheegayna maanta runaan idiin sheegayna positionkeenniyaan joognaa. runtii xubno aan imaan oo aan guddi wax dadka meesha ku qoran waa jiraan xubno aan imaan oo ay sax ahayd. laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa in ka badan kooram ay fadhiday haddana dafiran inay fadhiyeen. marka waa mahadsantihiin marka maadaama